shirkan jaraa'id oo wuxuu ku saabsan yahay inuu isugu yeerin bahda saxaafadda sida degdega ah saad ogsoontiin basaakay halkan waxaa loo qabtay shir jaraa'id oo lagu cadeynayay in mooshin ka dhan ah gudoomiyaha golaha shacabka laga keenay oo kala soonida looga laabanayo waxayna soo gaaray marka maanta gelinkii adiga xilliga duhuradii shir an la qabtay oo arinta looga hadlay dalkayga saad ogsoontiin wuxuu leeyahay sharci wuxuu leeyahay xeer dastuur baa inoo yaala waxa inoo yaar xeer hoosaad aynu ku wada dhaqanno oo runtii ay qasab tahay qof walba inuu hoggaansamo dalka joogo gaar ahaan baarlamaanka Soomaaliyeed waxa kala bixiyay xeerka ay qorteen xeerka ay ansixiyeen 275 lagu ansixiyay marka wixii maanta runtii dhacay oo shirkii guddiga joogtada lagu baaqay oo aanan xeerka iyo sharciga meel ku waafaqsaneen insha Allah ta'ala waxay inoo dulmaraya qodobadii siyihiin u dulmaraya walaalkay xilwaan Abdi Cali guddoonka mar labaad iyo mar saddexaad waxaan shacabka Soomaaliyeed iyo cid kasta oo fiirsanaysa aan u sheegaynaa inay ihaano ku tahay aqoonta inay ihaano ku tahay sharciga inay ihaano ku tahay in lagu tanto isbaara siyaasadeed loo dhigto xukuumadda iyo golaha shacabka annaga waana la eedeeyaa golaha shacabka maalin walba waxaa la yiraahdaa yaa idin la xisaabtamaya annaga isla xisaabtana sharcigeenana isku xisaabtanaa waxaan qoranay waqti aan la ogeyn cidda ku xadgudbi doonto sharcigaana kala ilaaliya guddoonka gudoomiye Maxamed Cismaan Jawaari gudoomiye umaahan golaha shacabka inta uu ka imaanayo uu xukunkan ka dhacayo ama uu maxaa la yiraahdaa uu ka guuleysanayo mooshinkan uu ka jabinayo oo doodiisu ay ka furmi doonto golaha shacabka guddi joogtana go'aan kama gaari karaan arintaasna waxay xoojinaysaa ihaanada uu ka galay waxaana u diraynaa baaq 275 xildhibaan inaan nala aragtaan akhrisaan xeeroosaadka qodobkiisa 75aad farqada 3aad qodobka 9aad farqada 2aad qodobka 9aad farqada 5aad oo si fiican u qeexay sharciga iyo kala sareynta iyo cidda awoodda u leh inay wax sameeyso maanta kuwii shalay ku doortay ayaa kalsoonidii kaala noqday in la xisaabtamo oo aynu ku kala badino 275 hortooda ama kalsoonidaadii aad kula soo noqoto ama aad sidaa ugu weydana wax weyn ma aha waa inaad ku kalsoonaataa kuwii shalay ku siiyay weeye kuwa maanta ka keenay ee yiri waanu kaala noqonay waxaan leeyahay hadal badan meeshan ma yaalo xaq maaha in maaragtay mooshin la keenay kalsooni kala noqosho gudoomiye guddi joogto horteed lagu furfuro wax sharci amaaha gudoomiye sharciga ku tuman